Ryan Cherki oo jebiyay rikoor uu ku faani jiray Bruno Fernandes. Ryan Cherki ayaa jebiyay rikoor uu horey u haystay Bruno Fernandes isagoo sameeyay taariikh cusub oo Premier League ah. Khamiistii, xiddiga qadka dhexe ee Manchester City ayaa muujiyay bandhig cajiib ah kulankii Chelsea, taasoo sii xoojisay saameyntiisa kooxda. Sida Opta sheegtay, Cherki ayaa noqday ciyaaryahanka ugu badan ee hal xil ciyaareed ku sameeya caawimooyin 2 gool ama ka badan 4 kulan oo kala duwan tartamada oo dhan. Tani waxay ka dhigan tahay inuu ka sare maray Bruno Fernandes oo isagu sameeyay 3 kulan oo noocaas ah xil ciyaareedkan. Sidoo kale, Cherki wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee gaara 10 caawin ka badan xil ciyaareedkiisa ugu horeeyay ee Premier League. Tan iyo Dimitri Payet oo sidaas sameeyay xil ciyaareedkii 2015-2016. Cherki wuxuu Manchester City kaga soo biiray Lyon sanadkii hore, wuxuuna si degdeg ah u noqday ciyaaryahan muhiim ah oo ka mid ah qorshaha Pep Guardiola. Adiga ahaan daawade, miyuu Cherki noqon karaa ciyaaryahan laf-dhabar u ah kooxda Manchester City? Aragtidaada qaybta hoose ee comment-iga nagula wadaag, aad baad u mahadsantahay. Fiid wanaagsan saaxiibayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee aan ugu hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalkan la soo gaartay, ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad sii share garayso. Haddii aad nagu cusubtaan ugu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. mahadsanid.